qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa ka hadlay mooshin ay sheegeen inay ka soo gudbiyeen maayarka degmada Laascaanood Ismaan Saleebaan Jaamac balse uu diiday maayarku inuu aqbalo mooshinkaasi. xildhibaanadan oo tiradoodu gaarayso 12 xildhibaan ayaa sidoo kale sheegay in maayarku uu garan waayay shaqadii loo igmaday uuna boob ku sameeyay hantida dadweynaha sidoo kalena uusan wax tashi ah kala sameyn xildhibaanadii soo doortay. waxay xildhibaanadu baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasta oo ay khusayso in si degdeg ah wax looga qabto arrintan khilaafka baani ka taagan yahay. waxa kale oo xildhibaanadu sheegeen in maayarku uu gacanta u qaaday qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada iyo mas'uuliyiin kaleba, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa seminaarka uu golay soo saaray buudiiday wuxuu diiday in qashinka la xaaqo, wuxuu diiday inuu lowrarkii kordhiyo, wuxuu diiday inuu ololayaasha nadaafadda aanu geli jirnay la galo, lacag unba urursadaa sidaa la adligeed. waxa weeye waxba yuu qabiil ku meeraysan, yuu odayaal ku meeraysan. waxa weeye waxaa naga go-aana in uu ka tago. iminka waraaqahaanu qornay kama jawaabin, hargeysu u baxsaday. waxa kale uu sameeyey waraaqdatan intaanu gacantiisa uga dhiibnay buu yiri qaban maayo, fadhig ma qabanayo buu yiri. waxaa jira oo kale uu sameeyey inuu saakadatan marba uu meel naga soo waxaynaya ama qaar nagu jira uu yiri ku qortay waraaqo. arrintaa waxba kama jiraan. halkan inay ku soo gudbiyeen 8 xubnood warqad ay ku eedeynayaan maxaa la yiraahdaa maayarka degmada Laascaanood mooshin xilka qaadisa ay ku soo gudbiyeen 8 xubnood oo golaha deegaanka degmada Laascaanood taasoo ay ka horeysay warqad eedeyn ah oo maayarka loo jeedinayay oo loo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha, barasaabka gobolka Sool, madaxweynaha gobolka Sool. taasi ay ka horeysay warqadda markaa mooshinka ah 8 qof ay ku saxeexanayd waxay ku ekayd bishii markay ahayd 30 bisha afraad 2016 ayay ku ekayd. maayarku waa qaban waayay kalfadhiga caadiga ah in laga codsaday iska soo daba dhacay bariyahanba ama media ha noqoto ama fadhi ku dirka wararkooda ha noqoto ka warhaysaa in aanu soo gudbinay mooshin ka dhan ah maayarkeena maxay ka qaadno. mooshinka waxaa ka horeeyay warqad eedeyn aan soo jeedinay, barasaabka gobolkan uu geynay, eedeyntii kamuusan jawaab celinin maayarku ee waxa uu keenay inuu marna sii ordo marna soo ordo miciin ka dhigto inuu u cararo Hargeysa. kooran baanu nahay, waxaan ku fadhinaa halkan 12 xildhibaan oo la dhacmad waliba say ku kala xigaan baa loo sii kala guraay. kulmiye ku andacoonaya 8 xildhibaan oo kulmiye baan halkan ku fadhinaa. waxaanu diyaar u nahay inaan xilka ka qaadno Ismaan Saleebaan kalsoonidii kala noqono iyadoo aanu eegnay inuusan degmadeena ka shaqayn karnin, dawladii uu wax ka dooni lahaayo degmadeena iska hor keenay. degmada inta leeg ee gabigeeduba aan kala gurka u baahnayn ee naloo dhaariyay ama aan ku dhaaranay inaanu degmada qaranka iyo dalka iyo diintaba aanu daacad ugu shaqayno uu ka dhigay reer siyaasadda isku bedeshay qabiil kaliya. anagu qabiil ku shaqayn mayno, daalna mayno ilaa aan ka gaarno. waxaan hadda ka hor ka gudbinay duqa eedayn ku saabsan xaqiisa iyo dhaliilaha oo aan kaga cabanayno, taas oo wax jawaab haba yaraata oo ka bixin, isagoo u adeegsanaya nidaamkii iyo shaqadii mas'uuliyadnimo. marba hadba inuu odayaal marna Hargeysa bargeeyo iyo madaxtooyada marna uu gobolka ku wareego. kursigana oo haysto odayaal kamid baa ka horeeyay, mid baa ka sii horeynayay. qofkii inuu aamino weeye maalinta ummadiisa in 12 qof aysan kari waay degmiye ummad ma maamuli karo. waxaan ugu baaqnaa cod dheer iyo cod gaabanba Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweyne Siilaanyo, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, barasaabka gobolka haddii la doonayo degmadana in ay shaqeyso xasilooni la galo goluhuna uu mid ahaado. marka hore xaga kulmiye anu waxaan ahaa xildhibaanadii asalka ah ka soo baxay kulmiye uga soo baxay degmadan. kulmiyena waa labo, waa kulmiye asal iyo kulmiye la kulmiyay. wuxuu sheegtaa kulmiye la kulmiyay oo xisbiyada dhacay uu ka soo baxa waa dadka guurguura aan macnaha xisbigiisa tooska ugu abtirsan mid caayimid artaamay ka dhigay oo qaar kale ku soo qaano askartu naga qabatay. 6 xildhibaan baan nahay, inta xildhibaan ay iyo afligaado uu soo leeyimi marna naftiisaan ugu danaynay oo waxaan ugu danaynay hadduu saan ku sii jiro
dee dhiig buu ku gelayaaba. khilaafkan u dhexeeya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo maayarka ayaa noqday mid caqabad ku noqday bulshada balse lama oga halka uu ku dambeyn doono. Mawlid Cali, TV-ga caalamiga Star, Laascaanood.